مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد. إخوتي في العقيدة، in la aamusaabay mala ku roontay si aynu isu maqallo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun. rabbi subxaanahu wa tacaala fii suurati alacraaf waxa uu ku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo amraya faqsus ilqasas, dadka taariikhda uga sheekee baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynayaa? ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala lacallahum yatafakkaruun. waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan. yacni taariikhdu waa wax lagu cibro qaato. laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab. aayad kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramayo waxaa ku jirta wax ku qaadasho, laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah. waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa. taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag, dibna looguma arag bay tilmaamayaan. sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn, ibnulahir, waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal erayo uu qorayo ibnulahir fii kaamilih. ibnulahir waa nin taariikhyahan oo muslima. wuxuu noolaa casrigii tataarka, laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawaarzimiya iyo duminteedii. xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dembeeyey o dhan. wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada. wuxuu leeyahay ibnulahir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo. muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy. kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayey buu leeyahy inaan qoro. dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku, xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma waalmasaa'ib alkubraa التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi. waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay. waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy. khalaa'iqdoo dhan ku dhacday, muslimkana gaar ku sii noqotay. waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tan oo kale hore ugama dhicin, dibna uga dhici mayso, xataa haddii la yidhaahda buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya. waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi, laakiin kuwani inba may sii daynin. dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan. gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya. wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo. dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray.
tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray. mongolia muddo aad u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan. wakhti aad u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen. waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro oo rushia oo dhan 27 milyan bay leeyihiin kilomitr square oo rushia la dul maro, oo ukraine la maro, oo poland la maro, oo majar la maro, hungary, oo croatia la maro, slovenia la maro, oo baxrul adrian talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan. taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin. dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno. waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaaga rabbaaniga ee ah khazakhstan, afghanistan, bakistan, waxaa istaan oo dhan isku soo dar, iiraanna ku dar, intaas bay ka telin jireen. dowla alkhawarzimiya waa dowlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badan uu ka jiray. dowla alcabaasiya colaad badan la gashay, salaajaqadii ruumin badan la dagaalantay, salaajaqadii yacni atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa. suuraddan kooban waxaan rabaa un inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalamulislaamigu. waxaa jirtay indiya, waxaa ka telin jiray iyana dowlad islaamiya alghoriyiin la odhan jiray. faris qayb ka midi waa persia, qayb ka midi dowla alkhawarzimiya bay hoos tegi jirtay. dacal yar oo sokana waxaa ka telin jiray niman la odhan jiray ismaaciiliyiin. ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata, culamo badanina gaalaysiiso. waa firqo waagaa hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay, dagaalyahan ahayd, dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay, ku caanbaxday ikhtiyaalaadka. caalamulislaami madaxda la laynayo, waxa la laynayo iyaga khaarijin jiray. farsamadaasi iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan. rag badan oo duwalkii islaamiga ee waaweynaa ka tirsanaana way laayeen, oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanayeen midi geliyeen, qaarba si ay ku dileen. anadol markaynu eegno waa turkiga, dowlad asalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslima, oo alab arsalaan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la odhan jiray dowlad ka tafiirantay. markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa, dowlado tiro badanina way ka jireen, laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin. xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub, gaar ahaan 4 dowladood ee iminkaba caanka ah: faransiiska, ingiriiska, talyaaniga iyo jarmalka. 4taasaa hogaaminaya yurub. 2 dowladood oo sbain iyo bortugiiska oo markaa iyana jebiyey muslimiinta iyo xooggan baa markaa iyana jiray. marka la eego caalamulislaami qaybtiisa waqooyi, imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kiristanku, crusadeski, oo dowlado yarar oo kristana ka jiray sida bayruut ama sida ama caka ama antakiya. kuwaasoo dhamme waxay ahayd dowlado yaryar oo iyana masiixiyiinah oo meelahaasi ka dhisnaa. dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisaddii bariga oo markaasi deganayd dowla bizantiya la odhan jiray, romanskii bizantiyiinta la odhan jiray, oo kiniisaddan rushiya iyo greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay, oo markaa magaaladan istanbul la yidhaahda haysatay, oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa.
waxaa kaloo jiray dowlado yaryaroo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dowlat alkurj, kurjigu waa georgia meesha nimka la yidhaahdo, amase armeniya, iyana dowlado yararoo kristan ay ka jiray, imaaraat yararoo saliibiya. intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaalleen. mar qura ayaa waxaa soo baxay dowlad cusub oo taariikhdii dunida beddeshay, oo xoogaggii dunida beddeshay, oo muddo yar iyadu ku noqotay addawla alkubraa, ama aan idhaahdo alqutb alwaxiid, dowladda qura dunida ka jirta, cid kale oo jirta aanay aqbalin. waa dowladdii la odhan jiray mongolianska ama tatar. ereyga tatar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan, keebaa kee dhalay, keebaa weyn, keebaa yar. taarikhyahanada badh maalan rashidudiin alwasiir kitaabkiisii la odhan jiray jaamic tawaariikh, isagu wuxuu qabaa tatarku inay yihiin shucba min almaquul, mongolianiskaa rasmiga, tatarku waa qabiil ka mida buu qabaa markaa. halka raagib asarjani iyo taariikhyahano badanina ay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay, tatarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin. calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay, tatarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay, dowladnimay isku haysteen. akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo jinkis khan. boqorkaa cusub ee magacaa la baxay, magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa naanays, waa sidii kaysar iyo magaca noocaasi oo kalea. waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahir dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca, dunida ninkii ugu sarreeyey. isaga magaciisa rasmigaa timojin baa la odhan jiray. timojin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'idah oo haliyeeya oo ciidan hoggaamiya. wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabulo bulsheed, nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan. wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan. haddii la madhanayo mongolia maalan markuu qabsanayey, qabaa'ilku markay isdilayeen, dagaalladu galay, reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta. wixii madaxoo dhan inta la soo qabtay 70 ka mida nolosha igu kariya buu yidhi, iyagoo nool baa la kariyey. yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa. waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen uu boqortooyadan uu qabsan doono, intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo, iyagoo nool dheriga ha lagu rido, ha karsamaan. wuxuu ahaa nin dagaalyahana, qaa'ida oo dad hoggaamin karo, ururin kara, manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariis oolina. timojin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan, isagoo yar baa aabihii la dilay, reerahooda labay hoofsaday, mar dambuu soo lufluftay waxa kan, akhiiran boqorkaasuu dhoqday. timojin wuxuu isku dayey inuu boqortooyo fiican samaysto. wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo. dabeetana boqortooyadii chinesku ku durkay, boqorradii chinesku iyana jebiyey, china oo dhan buu qabsaday. bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey, inta ka dhexle kor buu u socday ilaa siberiyuu qabsaday, siberiya ilaa kuuriya, dowla alkhawarzimiya dhinaceeda ilaa iyo china dhinaciisa dambe. dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan. dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag. wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo alyaasiq aw ilyaasik. distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaallay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay, dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay. waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata.
yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkooda iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxaa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caan baxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leedday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la ydhahaa wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biiji holaako yacni qaa'id la wada yaqaan bayden waa quwaaddii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaalada wuxuu aaminsanaa bay yidhaaheen mabda'a alqutb alwaaxid aqtaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadku dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxaa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabaya qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaanu isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay xagguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay addawla alkhawaarzimiya waa dawladdii xukumi jirtay afghanistan uzbekistan turkmanistan kazakhstan tajikistan bakistan iyo qayb eeraan ka mid ah intaasuu isku haystay addawla alkhawaarzimiya oo muslim ah caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo orjanda turkmanistan bay ku taallay caasimad ayay halkaa u ahayd labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisiddeedii ayuu mashquul ku ahaa jina iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dawla alkhawaarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga jina u dhow ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey waa ballanfuryo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa yidhaha jawaasiis bay hayeen qaar baa yidhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa yidhahdaan radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dhamm waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidka warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum
waatruku tarka maa tarakuukum waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la ydhaha ama turkiga la ydhaahdaa turkigu waa qabaa'ilkan bariga o dhammi ciddii ay ka soo jeedeen markaas ma aha atractan oo qura atractan asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhammi tarkigaasay ku jiraan watruku tarka maa tarakuukum ma dhicin jinkis khan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnu lkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta ha layga soo geliyo boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin jinkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi ha la soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana ha la dilo awal waxaa la isku haystay waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo ha lay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay jinkis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaani xarb labadii dowladood dagaal baa loo diyaar garoobay jinkis khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay moxamed ibnu khawaarzim shaah ninkan la yidhaahdee dowladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii arjanda wuu ka yimi isna bariguu soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxaa la isugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dowladdan kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20 kun baa ka geeriyooday baa la yidhahdaa dagaalka kan 20 kun oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawaarzim shaah wuxuu u fekeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto o ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyiyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu u kaxaystay wuxuu kaloo ku tala galay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo khawriyiinta waxba kama soo helayo daa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la yskuma fiicna atraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto o dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu
fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin. rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabannina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan, dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi. wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy. bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada. laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto. waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa. laba hadday isqabato, wadaad iyo wabiinba isku dar. laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee. cidda kalena maxaad u malayn? wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco. caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay. bal inay iscaawiyaan daaye dagaallada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray. midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid. nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla, rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiintaa cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane. waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam. boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisi iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin. haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay, jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka? hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka. jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey, uzbekistan buu soo galay, wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah. yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay. shalay bayaanku odhanaya indiya goormuu tegayey ingiriisku. waa ku axad britaniyin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey. markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan. kaliba oday kaloo faransiisaa tegey. markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo ina iyada to lagu guray. idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa. bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn. 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar. magaaladii buu la go'doomiyey. magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey. ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga. laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin. waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan, laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo. dadkii badh baa caynkaa yidhi, badhna waa diideen. magaaladii markay isqabatay qolole aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno, iyo qolana aan isdifaacanay noqdeen. waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno, qoladii lahayd aan isdifaacno. qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen. dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen. dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya, aan isdhiibno. way isdhiibeen. jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma.
qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiyey ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladiibuu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey